kulanti wanaagsan mar kala daawadayaal idil ahaantiinba kuna soo dhawaada warkayaga oo faahfaahsan aan ku bilaabay xeeraryaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa dacwad ku soo oogay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waxaana xeeraryuhu sheegay inuu u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya iyo mudanayaashaba codsi la xiriira in xasaanada laga qaado labadaas xildhibaan wariyahayaga Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinta warkan eegaya xeeraryaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dacwad ku soo oogay laba ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka kuwaasi oo lagu eedeeyay in ay galeen falal dambiyeed la xiriira qaran dumis iyagoo dalal shisheeye kala shaqeynaya duminta qaranka xeeraryaha ayaa sidoo kale sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka Soomaaliya ay u gudbiyeen qoraal cadeynayo laba xildhibaan oo galay falal dambiyeedyo waaweyn sida abaabul iyo sharci darro qaran dumis isla markaana cadeymahooda oo dhameystiran lahaayo isagoo magacyada labada xildhibaan saxaafadda la wadaagay waxaan maanta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka aan u gudbinay qoraal cadeynaya laba xildhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo cadeymaheedii iyo baaritaankeedina uu dhameystiran yahay in ay xasaanada ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimana loo dhameystiro xildhibaanku xasaanad buu leeyahay laakiin dambiga excuse kama aha macnaha uu geli karaa fal dambiyeed sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamaanka in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanada laga qaado si sharcigana loo horgeeyo muxuu ahaa isheeg baaritaan dhameystiranna loogu geysto labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen fal dambiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo si marka baaristaas loo dhameystiro isla markaasna haddii uu noo muuqato aan ku horgeyno maxkamadda awoodda u leh waxaan golaha shacabka iyo baarlamaankaba ka codsanaynaa iyo gudoomiyahaba in labada xildhibaan aan magacyadooda sheegnay laga qaado xasaanadda kolley dambiyada loo haysto iyo qodobada loo haysto way ku qoran yihiin qoraalka aan qornay sidaa darteed uma baahna faahfaahin dheeri ah intaas ayaan rabay inaan la wadaago waxaa kaloo rabaa inaan sheego cid kasta oo uu galo tuhun ah fal dambiyeed mas'uul ha ahaado xildhibaan ha ahaado ama qof muwaadin ha noqdee in sharcigu uu adeegsanayo xeeraryaha qaranka ayaa sidoo kale digniino u diray warbaahinta qaar oo uu sheegay in aysan u hiilinayn ammaanka iyo dowladnimada badalkeed ay ku jiraan baaritaano la xiriira ciddii qaranka dumiskiisa ka shaqeynaysa bahda saxaafadda waxaa soo badatay waayahan in saxaafaddu ay aad xadgudub xadka ka baxsan oo qaanuunka waafaqsanayn ay ku kacaan ama aqoon la'aan ha u geyso ama si ku talagal ha u geystaan waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku xadgudubta sharciga inta qaanuunka ku siiyey xor baad u tahay qaanuunka inaad ku dhaqantaan haddaad qaanuunka ku xadgudubtaan sharciga inaad feesgareynaysaan amar ayaan idinku siinayaa cid kasta oo isku dayda xadgudub sharci oo ama ha noqoto saxaafad ama ha noqoto cid kaleba ama ha noqoto khalkhalgelin in tallaabada sharci ee ku habboon aad ka qaadataan oo sharciga iyo kala sarreynta iyo kala dambeynta loo hoggaansamo hadalka xeeraryaha guud ee qaranka ayaa u muuqday mid ku saleysan eedeymo balse xildhibaanada dacwadda loo haystay ayaa weli ka jawaabin dhawaanahan waxaa soo badanayay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo eedeymo u jeedinaya dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Maxamed wararka RTN Nairobi aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Xuseen oo warbixintaasi soo koobayay
haddaba hadalka ka soo yeeray xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya waxa uu guux siyaasadeed ka dhex uriyay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho qaybtooda ayaa Facebook ama baraha ay ku leeyihiin Facebook waxa ay ku soo qoreen eedeymo ay kaga falcelinayaan hadalka ka soo yeeray xeer ilaaliyaha guud ee qaranka siyaasiyiintaasi waxa kamid ah xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray sida tan mudane madaxweyne xildhibaan in xasaanad laga qaado lana dacweeyo wada sharciya oo loo maro iyo ogolaansho baarlamaan ay u baahan tahay ee garsoorka hanaga dambaajin waxa aad ka qubanayso haday tahay mooshinka laga keenay xeer ilaalintu kama joojin karto ee xildhibaanada ha isku sii caranin xildhibaan Mahad Salaad waxa uu sii raaciyay in madaxweynuhu uu ku fashilmay hogaaminta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dhanka kale xildhibaan Axmed Fiqi oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya iminkana kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa isaguna barta Facebook uu ku leeyahay waxa uu ku soo qoray sida tan warka ka soo baxay xeer ilaaliyaha aan sharciga ku magacaawneen Axmed Cali Daahir maanta waxa uu la mid yahay kii madaxda dalka iyo wadaadada ka agdhow dawladdu maalmihii la soo dhaafay oo idil ay uga hadalhayeen siyaasiyiinta ka aragti duwan madaxda dalka shalay waxay ahayd fadwo wadaad maantana fariin gaf ah oo garsoorka ka soo yeedhay arintani guud ahaan waxay muujinaysaa aqliyada hooseysa ee madaxda dalku rabaan inay ku caburiyaan xildhibaanada xorta ah ee xambaarsan una istaagay badbaadinta dalka xildhibaan Axmed Fiqi waxa uu farta ku guday sharci ahaanshaha xeer ilaaliyaha qaranka waxaana uu yiri Axmed Cali Daahir oo ku magacaaban xeer ilaaliyaha qaranka si uu sharci u noqdo waxay u baahnayd in qudhiisa golaha shacbigu uu axsaanad siiyo lamana horkeenin ilaa iyo hadda warka uu soo saarayna maanta waxa uu ku magacdilayaa madaxbanaanida garsoorka waana gaf xildhibaanada qaranka lagu gafayo ayuu yiri xildhibaan Axmed Fiqi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya siyaasiga hore ugu soo tartamay madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isaguna barta uu Facebook ku leeyahay waxa uu ku soo qoray sida tan tani waxa weeye buu yiri in Soomaaliya hore looga dhaawacay habka federalismka markii dambana waa la badbaadiyay markana waa tiirkii labaad ee loo soo dhigtay oo noqonaysa buu yiri dimuqraadiyadii oo la dhaawacay maalmo ka hor ayay ahayd markii la damcay in la dumiyo habka federalismka taasi oo siyaasiyiintu ay badbaadiyeen maantana waxa loo soo dhigtay buu yiri dimuqraadiyadii iyo fikirka xorta ah ee mudanayaasha baarlamaanka ee mucaaraday dawladda Soomaaliya